11 Julaay sanadkii 2015 waxaan joognaa gudaha xabsiga aadka loo ilaaliyo ee Altiplano Prison ee dalka Mexico. Daqiiqada gudaheed waxaa ka dhacday fadeexadii ugu weyneed ee ay la kulantay dowladda Mexico. Waxaa xabsigaas ka baxsaday maxbuuskii loogu doondoonista badnaa caalamka. Isagu ma ahayn dambiile caadi ah, waxa uu ahaa aabbaha boqortooyo muqaadaraadka tahriibisa, mid ka mid ah dadka ugu taajirsan caalamka iyo dilaa ay gacantiisa ku maqan yihiin dhowr iyo 20,000 oo qof. Shakhsi uu qof waliba daacad u ahaa, ka soo bilow ilaalada xabsiyada, madaxda dowladda iyo saraakiisha ciidamada. Tani waa sheekada awoodda lacagta maanduuriyaha ay keento, iyo sida ay musuqmaasuqa ugu dhex faafiso gudaha hay'adaha dowladda, iyo sida ay ugu dambeyn u noqoto mid xargaha goosata oo la xakamayn kari waayo. Laakiin su'aasha qof waliba fajacisada ku riday waxay tahay, sidee buu nin kaliya uga baxsaday xabsi ay ku hareeraysan yihiin kumanaan askari iyo kaamirooyin CCTV ah oo daqiiqad walba ilaalinaya? Ku darso ma aha markii ugu horreysay ee uu ka baxsado xabsiyada Mexico. Kani waa madaxii muqaadaraadka Mexico iyo hogaamiyihii Sinaloa Cartel, oo ka mid ah ururada dambiyada abaabulan ee ugu awoodda badan uguna rabshadaha badan caalamka. Ku soo dhawaada sheekada waalida ah ee Joaquin Guzman, loona garan og yahay El Chapo. Xitaa asalka dhalashadiisa sir iyo madmadow ayaa ku jira, sida ay sheegeen saraakiisha dowladda oo soo saaray xogtaas iskhilaafsan. El Chapo wuxuu dhashay 25 Diseembar 1954 ama 4 Abriil 1957, wuxuuna ku dhashay tuulada yar ee La Tuna oo xigta magaalada Badiraguato ee gobolka Sinaloa ee dalka Mexico. Waxa uu ka soo jeeday qoys ku jira heer nololeed oo aad u liita. Aabihiis waxa uu ahaa xoolo dhaqato iyo beeraley dakhligiisu iska yaraa. Warbixinnada qaarna waxa ay tilmaamayaan in odaygu uu sidoo kale si qarsoodi ah u beeri jiray geedka Opium bobayga, oo ah geedka laga soo saaro muqaadaraadka heroinka. El Chapo waxa uu yaraantiisii suuqa u iibgeyn jiray liin macaanta si uu qoyskiisa uga caawiyo qarashaadka nololeed, maadaama uu ka soo jeeday qoys noloshoodu iska adkayd. Astaamaha taajirnimo iyo dadaal raadinta dhaqaale ayaa ka muuqday. Jacaylka uu u qabo hodontonimada awgeedna waxa uu xiran jiray dahab been abuur ah marka uu booqanayo qaraabadiisa. Waxa uu jeclaa inuu ururiyo lacagta markaasna uu tiriyo si uu u dareemo inuu hayo jidkii maalqabeennimada ee uu ku hamin jiray. Markii uu gaaray da'da 15 jirka, isaga iyo ilmo adeeradiis ayaa samaystay beer lagu beero xashiishka, waana tallaabadii koowaad ee uu u qaaday dhanka dambiyada abaabulan iyo abuuridda lacagta maanduuriyaha. Waana xilligaas marka uu qaatay naanaysta El Chapo oo afka Mexico noqonaysa kan gaaban. Hooyadiis waxa ay tiri mar waliba waxa uu u dagaalami jiray inuu helo nolol ka wanaagsan tii uu ku noolaa. Nolosha wanaagsan ee uu raadinayayna waxay ku timid qiimo aad u culus. Hantidii iyo awooddii uu helay waxaa saldhig u ahaa ka ganacsiga daroogada sharci darrada ah iyo sanado badan oo rabshado iyo dhiig daatay ay la socdeen. Kooxda daroogada ee Guadalajara, oo sidoo kale loo yaqaanay isbahaysiga, waxay ahayd urur ka ganacsada maanduuriyaha oo ka jiray dalka Mexico. Kooxdan waxaa la aasaasay dabayaaqadii sanadihii 70-meeyadii, waxaana dhisay Miguel Angel Felix Gallardo iyo 2 ka mid ah saaxiibadiis si ay maanduuriyayaasha kokaynka iyo xashiishada ugu gudbiyaan dalka Mareykanka. El Chapo waxa uu ka mid noqday xubin ka mid ah kooxdan, keliyana ma uusan noqon xubin caadi ah ee waxa uu ahaa xubin aad u firfircoon oo kooxda ka tirsan iyo qabiir ku xeel dheer isku dabaridka gaadiidka iyo sahayda ee kooxda Guadalajara intii lagu jiray sanadihii 1980-meeyadii. Intii uu ka midka ahaa ururkan waxa uu bartay El Chapo farsamooyin badan, waxaana ka mid ahaa sida loo abaabulo loona maamulo gaadiidka lagu gudbiyo maanduuriyaha masaafooyinka dhaadheer, sida loo dhiso shabakado xiriir oo ka gudba gobollo iyo dalal kala duwan, sida loo maareeyo saadka, kaydinta iyo qaybinta badeecadaha sharci darrada ah, sida ururada dambiyada abaabulan u shaqeeyaan una qaybsadaan mas'uuliyadaha iyo awoodda, sida loo ilaaliyo sirta howlgallada iyo xiriirada muhiimka ah ee ururka, iyo sida loo dhiso saameyn iyo taageero gudaha deegaanada ay ka howlgalaan kooxaha dambiyada. Dabayaaqadii 80-aadkii waxaa burburay ururkii Guadalajara Cartel ee uu ka midka ahaa El Chapo, una qaabilsanaa kala gudbinta sahayda muqaadaraadka. Sababta ugu weyn ee keentay burburka ururkan waxay ahayd cadaadiskii xoogganaa ee ka dhashay afduubkii iyo dilkii sargaal ka tirsanaa hay-adaha la dagaalanka muqaadaraadka ee Mareykanka. Sargaalkaas oo lagu magacaabi jiray Enrique Kiki Camarena,
kaas oo ay kooxdan qaarijiyeen sanadkii 1985. Falkaas oo si weyn u gilgilay dowladaha Mexico iyo Mareykanka ayaa sababay baadigoob ballaaran iyo cadaadis aad u xooggan oo kooxdan kaga yimiday Mareykanka, waxaana ugu dambeyn la xiray aasaasihii iyo madaxii ururkaas Miguel Ángel Félix Gallardo, taasoo ku qasabtay kooxda inay kala jabto una kala qaybsanto shabakado yaryar oo gobollo kala duwan ka howlgala. Kadib burburkii ururka Guadalajara Cartel, El Chapo iyo saaxiibkiis Ismael El Mayo waxa ay aasaaseen urur lagu magacaabo Sinaloa Cartel oo ahaa garabkii ka midka ahaa Guadalajara Cartel ee hoos imaanayay El Chapo. Magaca ururkan waxa uu ka yimid Sinaloa oo ah gobol ku yaalla waqooyiga dalka Mexico, kaas oo ururkan loogu magac daray maadaama ay ka soo jeedeen hogaamiyeyaal badan oo ururkan ka tirsanaa. Sanadihii xigay ururkaasi wuxuu noqday mid ka mid ah kuwa ugu awoodda badan Mexico, isagoo lagu eedeeyay inay sameeyeen lacag dhan balaayiin dollar oo ka timid ganacsiga sharci darrada ah ee xashiishka, kokaynka iyo heroinka. Waxay ahayd muddadaas markii ugu horreysay ee hay-adaha Mareykanka ay ogaadaan oo ay diiwaan geliyaan dhaqdhaqaaqyada El Chapo. Markii uu ururkiisu sii ballaaranayay, wuxuu noqday qof si isa soo taraysa u soo jiita dareenka ciidamada ammaanka iyo hay-adaha la dagaalama dembiyada abaabulan ee labada dal, Mexico iyo Mareykanka. Waxaa bilowday xilligaas tartan ku saabsan gacan ku haynta wadooyinka tahriibinta daroogada ee u gudba xadka Mexico iyo Mareykanka. Waxa ay colaad aad u xun dhex martay ururkii Sinaloa Cartel iyo urur kale oo isna lagu magacaabi jiray Tijuana. Labada kooxoodba waxay doonayeen inay xakameeyaan wadooyinkaas faa'iidada badan. Eedeymo, aargoosi iyo weerarro isdaba joog ah ayaana sii huriyay colaadda. Bishii Maajo sanadkii 1993, colaaddii u dhaxaysay Sinaloa Cartel iyo Tijuana Cartel waxay gaartay meel halis ah. Dabley hubaysan ayaa rasaas ku furay gaari meel u dhow garoonka diyaaradaha Guadalajara. Waxay rumaysnaayeen in bartilmaameedkoodu ahaa El Chapo Guzman, laakiin qalad ayaa dhacay. Gaariga waxaa saarnaa Cardinal Posadas Ocampo oo ka mid ahaa hogaamiyeyaasha ugu sarreeya kaniisadda Kaatooliga ee dalka Mexico. Geeridiisa ayaa gilgishay dalka oo dhan, iyadoo dhacdaduna noqotay mid si weyn loogu xasuusto taariikhda casriga ah ee dalka Mexico. Kadib geeridii Posadas Ocampo, dowladda Mexico waxay bilowday baadigoob ballaaran oo lagu raadinayo dadkii ka dambeeyay dilkaas. Intii ay socdeen baaritaanadaas, sawirrada Joaquin El Chapo Guzman ayaa markii ugu horreysay si weyn loogu baahiyay warbaahinta gudaha iyo dibaddaba. Baahinta wejigiisa iyo xogtiisa kadib, wuxuu u baxsaday dalka Guatemala si uu uga fogaado ciidamada ammaanka ee raad raacayay. Intii uu ku sugnaa Guatemala, warbixinno badan ayaa sheegay inuu bixiyay laaluush lagu qiyaasay 1.2 milyan oo dollar si uu uga helo ilaalin iyo taageero xubno ka tirsan ciidamada militariga Guatemala. Eedeymahaas ayaa qayb ka noqday sheekooyinka muujinaya sida ay kooxaha dembiyada abaabulan mararka qaar ugu dhex milmaan musuqmaasuqa iyo hay-adaha dowladda. Bishii Juun sanadkii 1993, Joaquin El Chapo Guzman waxaa gacanta ku dhigay ciidamada Guatemala isagoo oo ku sugan meel u dhow xadka Guatemala iyo Mexico, waxaana loo taxaabay xabsi ku yaalla gudaha dalkaas. Kadibna waxaa loo sii wareejiyay dalka Mexico. Inkastoo ay ahayd markii ugu horreysay ee la xiray El Chapo noloshiisa, haddana intii uu xabsiga ku jiray, waxaa la sheegay inuu laaluush siin jiray ilaalada xabsiga si uu u helo daryeel gaar ah iyo xaalado ka wanaagsan kuwa kale ee maxaabiista. Sidoo kale, warbixinno qaar ayaa sheegayay inuu xitaa lahaa xiriir jacayl intii uu xabsiga ku jiray, isla markaana uu sii waday inuu si dadban u maamulo howlaha Sinaloa Cartel isagoo adeegsanaya shabakado ka caawinaya gudaha iyo dibadda xabsiga. Bishii Janaayo sanadkii 2001, Joaquin El Chapo Guzman wuxuu ka baxsaday xabsi heerkiisu sarreeyo oo ku yaalla gobolka Jalisco ee dalka Mexico, kadib markii uu laaluushay dhowr shaqaale oo ka tirsanaa shaqaalaha xabsiga. Guzman waxaa lagu dhex qaaday gaari lagu rido dharka wasakhda ah, waxaana bannaanka uga saaray qof ka shaqeeya dayactirka xabsiga. Kadibna waa la kaxeeyey isagoo si qarsoodi ah looga saaray goobtii uu ku xirnaa. Baxsashadiisa ayaa dhalisay baadigoob ballaaran oo socday sannado badan, kaasoo ku fiday dhammaan dalka Mexico, iyadoo ciidamada ammaanku ay bilaabeen ugaarsi qaran oo lagu raadinayo. Intii uu El Chapo ka dhuumanayay hay-adaha ammaanka, waxa uu noqday qof lagu tilmaamo halyey sababo la xiriira sida uu mar walba uga baxsanayay gacanta dowladda kadib qabashadiisa. Waxa uu booqan jiray goobaha dadweynuhu isugu yimaadaan sida hoteelada iyo maqaayadaha,
waxa uuna dadka ka qaadi jiray taleefoonnada si loo hubiyo amnigiisa. Kadibna waxa uu bixin jiray lacagta cuntada qof walba ka hor inta uusan si deggan uga bixin meesha, isagoo aan wax dhibaato ah la kulmin. Kadib in ka badan 10 sano oo uu baxsad ahaa, Joaquin Aljabo Guzman ayaa mar kale la qabtay bishii Febraayo sanadkii 2014, isagoo ku sugan hoteel ku yaala magaalada xeebta ah ee Mazatlan oo ku taalla gobolka uu ka soo jeedo ee Sinaloa. Kadib qabashadiisa, mas'uuliyiintu waxay sheegeen in qayb ka mid ah guusha howlgalku ay ka dhalatay isticmaalka xog ku saabsan sida uu Aljabo u adeegsado tunneliska ama godadka dhulka hoostiisa mara. Wuxuu si weyn ugu tiirsanaa tunneello adag oo isku xira guryo iyo dhismayaal kala duwan, kuwaas oo uu adeegsan jiray inuu kaga baxsado ciidamada ammaanka iyo sidoo kale inuu ku raro xaddi daroogo oo aad u badan. Habkan godadka ah ayaa ka mid ah waxyaabaha ka dhigay Sinaloa Cartel mid aad u awood badan, maadaama uu fududeeyay qarinta dhaqdhaqaaqyada iyo ka gudubka xuduudaha si qarsoodi ah. Baxsashadii labaad ee Guzman waxay qaadatay dhowr bilood oo keliya, balse markaan lagama saarin albaabada xabsiga isagoo lagu riixayo gaari. Bishii Luulyo sanadkii 2015, kamaradaha amniga ee ku jira qolkii Guzman ee xabsiga ammaankiisu aadka u sarreeyo ee Altiplano Bryson ayaa duubay isaga oo galaya qaybta qubeyska ee qolkiisa, balse mar dambe dib looma arkin. Markii baaritaan dheeraad ah la sameeyey, mas'uuliyiintu waxay heleen wax aad u yaab badan oo la jaanqaadaya xeeladaha iyo habdhaqanka uu caanka ku ahaa. Waxa uu ku baxsaday tunnel ama god dhulka hoostiisa mara, kaas oo dhererkiisu yahay ku dhowaad 1 mayl, lehna nalal, hawo-gelin iyo mooto la beddelay oo ay mas'uuliyiintu rumaysan yihiin in loo isticmaalay qaadista ciidda iyo bacaadka intii tunnelka la dhisayay. Mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu yaabka badnaa ee lagu arkay noloshii Guzman isagoo baxsad ah ayaa ahaa kulan uu la yeeshay xiddiga filimada ee Sean Penn iyo atariishada reer Mexico ee Kate del Castillo. Kulankaas oo dhacay bishii Oktoobar sanadkii 2015, xilli aan weli ka soo wareegin bilo badan tan iyo markii uu mar labaad ka baxsaday xabsiga. Del Castillo waa atariisho caan ah oo ku matashay ganacsade maandooriye ah taxanihii aadka loo daawan jiray ee La Reina del Sur, sidoo kalena ka soo muuqatay taxanaha telefishinka Mareykanka ee Weeds. Sanadkii 2012, waxay barta Twitter-ka ku qortay fariin dhalisay dood iyo muran badan, isla markaana muujinaysay naxariis ay u qabtay Aljabo. Fariintaas waxay ku buurisay inuu jacaylka ka ganacsado halkii uu waxyaabaha kale ka ganacsan lahaa, iyadoo ku tiri, Aljabo, haddii aad awood iyo saameyn intaas la eg leedahay, u adeegso faafinta jacaylka iyo wanaagga halkii aad uga adeegsan lahayd ka ganacsiga maandooriyaha iyo dembiyada. Bishii Janaayo sanadkii 2016, mas'uuliyiinta Mexico iyo ciidamada badda ee dalkaas ayaa aroor hore howlgal weerar ah ka fuliyay magaalada xeebta ku taalla ee Los Mochis ee gobolka Sinaloa ee dalka Mexico. Intii oo howlgalku socday, dhowr ka mid ah saaxiibadii iyo la howlgalayaashii Guzman ayaa lagu dilay iska horimaadka, waxaana nolosha lagu qabtay Joaquin Aljabo Guzman, waxaana isla markiiba dib loogu celiyay xabsigii uu ka baxsaday sanadkii 2015. Mas'uuliyiinta Mexico aad bay ugu faraxsanaayeen qabashada Guzman. Madaxweynihii Mexico ee xilligaas, Enrique Pena Nieto, ayaa howlgalkii kadib bartiisa Twitter-ka ku qoray Mission Completed, taasoo ka dhigan hawshii waa la dhammaystiray. Waxaan doonayaa inaan shacabka Mexico la socodsiiyo in Joaquin Guzman Loera la qabtay. Guzman ayaa xilligaas dib loogu celiyay xabsiga Altiplano, halkaas oo uu ku andacooday in ilaalada xabsigu ay kula kaceen jirdil arxan daran, iyagoo ka hor istaagay hurdada oo aan u ogolaan inuu seexdo. Dhanka kale, maamulka xabsiga ayaa qaaday tallaabooyin amni oo aad u adag si looga hortago baxsad kale. Xarunta xabsiga waxaa lagu rakibay 100 kamaradood oo cusub, halka sagxadaha iyo dhismayaasha qaarkood lagu xoojiyay biro aad iyo aad u adag. Dayactir iyo dib u habeyn lagu sameeyay xabsiga Altiplano Bryson ayaa sababtay in Aljabo loo wareejiyo xabsi kale oo ku yaalay magaalo xuduud la leh Mareykanka, kana soo horjeeda magaalada El Paso ee gobolka Texas ee dalka Mareykanka. Dabayaaqadii bishaas, dowladda Mareykanka ayaa codsi u dirtay dalka Mexico si loogu soo gacan geliyo Joaquin Aljabo Guzman. Racfaano badan oo uu qaatay Aljabo si aanan loogu gacan gelin Mareykanka ayuu ku guul daraystay, waxaana ugu dambeyntii 19 Janaayo sanadkii 2017 laga soo wareejiyay gacanta dowladda Mexico, waxaana loo soo wareejiyay dalka Mareykanka. Waxaa diyaarad lagu geeyay gobolka New York, kadibna waxaa loo gudbiyay maxkamadda federaalka ee Brooklyn
si halkaas loogu qaado dacwadaha waaweyn ee ka dhanka ahaa. Sanadkii 2019, maxkamad ku taalla Brooklyn, caasimadda New York ee dalka Mareykanka, ayaa ku heshay dembiyadii loo haystay, waxaana lagu xukumay xabsi daa'in ama sidaad u taqaano cimriga ha ku furto iyo 30 sano oo dheeri ah. Waxaana loo diray xabsiga ugu ammaanka badan ee ADX Florence ee gobolka Colorado ee dalka Mareykanka, halkaas oo uu weli ku xiran yahay. Waxaa halkaas ku eg sheekada madaxii muqaadaraadka Mexico, Joaquin Archibaldo Guzman Loera, loona garan og yahay El Chavo.